Soomaalida ku dhaqan wadankan Koonfur Afrika ayaa waxa soo food saartay cabsi aad u xooggan kadib markii uu soo kordhay dilalka iyo dhaca loo geysto Soomaalida jooga gudaha dalkan Koonfur Afrika. dilalka loo geysto Soomaalida wadankan u soo nolol raadsaday ayaa waxa la xaqiijiyay in ay geystaan burcad hubeysan oo South African ah iyagoo isku dayaya in ay dhac iyo boob u geystaan goobaha ganacsiga oo ay Soomaalida ku leeyihiin gudaha wadankan Koonfur Afrika. xilliyada ugu dilalka iyo dhaca badan wadankan Koonfur Afrika waa xilliyadan oo kale oo qabowga uu jiro iyadoo Soomaalida ku ganacsada tuulooyinka ay soo food saartay cabsi arintaasi ku aadan. Cabdisamad Qaasim Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku ganacsada tuulooyinka ay degaan dadka madow ee South Africaanka ah waxa uuna iga waramay xaaladda cabsiyeed ee soo food saartay. marka dhibaatooyinka aad u badan waa dadka doosaha wadanka u dhashtay inay markii qawaal gaaro shaqo ma hayaan guriyadii waxay ka qaban jireen wixii hadda ma wada hayaan marka waxay isku dayayaan Soomaalida sidii ugu raadsan laayeen waxay cun laayeen iyo waxay wax ku sii raadsan laayeen dabkooda ku shidan laayeen xilligan oo aad iyo aad qawaal ugu jiro oo qabowga aad u sii badan yahay ee Soomaalida cabsideeda aad iyo aad wax u sii kordhayso waxaan dhaxaysada waxa lagu dilay 5 qof oo Soomaali ah gudaheeda marka waxay isku dayayaan inay dadkii baartaan ee dhacaan oo haddana dukaamada xilli dambe soo galaan noo soo qarqaraacaan oo mar ma dad customka caawisa ma dadka iska ilaalisa wallahi cabsi aad iyo aad u badan ayaa hadda aad macni u leenahay. ciidamada ammaanka ee wadankan Koonfur Afrika ayaa heegan ugu jira sidii ay ku yareen lahaayeen dilalka iyo falalka kale ee lagu la kaco Soomaalida ku ganacsada gudaha wadankan Koonfur Afrika. Cabdikariim Mursal Farax, Universal TV, Cape Town.